السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي qaaliga waa in salaamo meel walba adduunka ka joogtiin waa walaashin Soomaalida madow fadlan subscribe noo saar haddii aan ugu cusub tahay maanta waxaa idin wada arrin aad iyo aad u yaab leh subxaanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wiil Soomaaliyeed ayaa wuxuu iska dhigay gabar si uu uga dhoofo wadanka Turkiga kadibna uu u gaaro dalka Ingiriiska wiilkan Soomaaliyeed ayaa kaalkacyo ka tagay kadib loo sheegay in uu u socdo dalka Ingiriiska gabarna ay u dacweyneyso da'diisuna waa 21 jir sida la sheegay wuxuu tagay dalka Turkiga magaaladiisa Ankara kadib halkaas ayuu muddo sii joogay kabacdi walaashiis ayaa u soo dirtay baasaboorkii markay u soo dirtay ayay waxay tiri waxaan rabaa inaan kugu dhoofiyo baasaboorkayga waxaa soo gashataa dharka dumarka waxaana soo marsataa make up kabacdi wiilkii ayaa aqbalay inuu arrintaas sameeyo subxaanallah kabacdi wiilkii wuxuu sameeyey wuxuu tagay koofeer uu tagay wuxuu soo samaystay wejiga ayuu make up soo marsaday sida aa ujeedaan sawirka dhex waa wiilka sawirka geeska jira waa gabadha dhanka bidix jiro dhanka midig kan jirana waa wiilkii oo caadi ah inta uusan make up ka marsanin waa wiil aad u qurux badan aad u da'yar marka waxaa arrinta la yaab kale ay tahay waxay tahay wiilkii wuxuu soo gashtay jaakad weyn surwaal gabdhaha madaxa masar uu kusoo xirtay sida aa sawirkaba idinkaga muuqato kabacdi wuxuu isku dayay inuu imaado eeraboorka Turkiga si uu uga dhoofo kadibna uu u gaaro dalka Ingiriiska halkaasi oo walaashiis ay ku sugaysay uu halkaas walaashiis ugu diyaarisay inay baasaboorkaas ku dhoofiso wiilkii ayaa arrintii sameeyey kadibna labistay dharkii dumarka Soomaaliyeed ayuu labistay wuxuu marsaday make up wuxuu gashtay jaakad weyn kabacdi wuxuu tagay eeraboorka Ankara halkaas uu rabay inuu ka dhoofo uu ku tago wadanka Ingiriiska eeraboorka ayuu soo galay sida la sheegay saaxiibayaal sida la sheegay eeraboorka ayuu soo galay kabacdina wuxuu tagay meeshii immigration markuu tagay oo baasaboorkii wixii wiilkii loo dhameeyey uu rabo inuu duulo uu ka duulo dalka kadibna waa ka asagoo soo galaya eeraboorka ujeedina umaleynaa sawirka kaamirada qarsoon ayaa lagu duubay kabacdi markuu eeraboorkii soo galay Ankara uu soo galay arrintiisa loo dhameeyey oo duuli rabo waxaa qabta ciidamada dadka aragga fog ka ilaaliya amba sirdoonka sida loo yaqaano ayaa wiilkii arkay ka shakiyay socodkiisa dadku waxay isweydiinayaan sababta looga shakiyay maadaama wiilka dumar isku soo ekeysay dhan walba uu iska soo dhisay oo si dumarkii oo kaleeto uga soo labistay meel walbeeto xagga make up xagga timaha xagga labiska xagga socodka xataa uu iska doondoona sida dumarkiina u tilaabsado oo u socdo gacmihiisa laafihiisa meel walba oo jirkiisa ka mid ah wuxuu ka dhigay sidii dumarka oo kaleeto ayuu kasoo samaystay kabacdi meeshuu yimiday dadku waxay isweydiinayaan sababta sida looga shakiyo wiilkan waxaa ka shakiyay ayaa la dhahay nin ka mid ah sirdoonka oo meesha fadhiya ayaa aad uga shakiyey wuxuu ka shakiyey socodkiisa iyo qaab dhismeedka jirkiisa maadaama ay dumarka u wen yihiin qaarka dambe ragguna ay u wen yihiin garbaha koro ay u wen yihiin wiilkii ayaa calaamadahaas laga waayey waa ka asagoo meesha jooga migrationka oo baasaboorkiisa garaacanaya dadku waxay aad iyo aad uga shakiyeen qaab socodka wiilka maadaama uu feeraha hore u weynaa qaarka dambena uu eber ka ahaa yacni uusan daba iyo wax iyo baag u lahayn marka waxaa layidhi nin ciidanka Turkiga ka mid ah oo meesha jooga ayaa aad uga shakiyay wiilka laafihiisa iyo jirkiisa ayuu ka shakiyay maadaama uu jir dhisan wiilku uu qabay oo jirkiisii aad iyo aad u dhisnaa ayay ka shakiyeen ciidamada markuu migrationka soo galay waa kaasaa asagoo meesha taagan waxaa duubtay kaamirada eeraboorka ku xirneed ayaa sawirtay asagoo meesha taagan oo raba inuu baasaboorkiisa loo garaaco kadib baasaboorki ayaa loo garaacay dhegeystayaal kabacdi maxaa dhacay arrin aad iyo aad loola yaabo ayaa ka dhacday halkaas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ummadda Soomaaliyeedna ka fajicisay meel walba ay joogto aad iyo aad ayaa looga naxay aniga idinla hadlaya aad ayaan uga naxay wiilkaas Soomaaliyeed waana arrin fajac leh kadib markii baasaboorkii loo garaacay ayuu soo baxay waxaana ka sheekeyn ciidanka kamid ah ninkii ayaa ku dhegay kabacdina waxaa la ogaaday inuu nin yahay waa wiilka Soomaaliyeed aad ujeedin sawiradiisa waa kuwa idiin muuqdo waa walaashiista dhinaca bidix jirto dhexda kan ku jira waa asagoo make up soo marsaday kan kalete dhinaca jirana waa asagoo wiil caadi ah ciidamadii ayaa qabtay ciidamadii markay qabteen baarisaa lagu sameeyey baaristii markii lagu sameeyey kabacdi waxaa la ogaaday inuu wiil yahay uusan gabar ahayn baasaboorkii laga qaaday xabsiga ayaa loo taxaabay dhegeystayaal hadda waxaana soo gaaraysa daawadayaal waxaana soo gaaraysa in gabadhii baasaboorka laheyd ee ku sugneed dalka Ingiriiska inay qaqil ku jirto in dowladda Ingiriiska ay ka qaadato baasaboorkeeda amaba xabsi loo taxaabo amaba lasoo musaafiriyo ayay halis ugu jirtaa sidoo kale wiilkan ayaa ku xiran dalka Turkiga kadib markii uu falkaas sameeyey aad iyo aadka looga naxo
soomaalida haddaan nahay Yurub aan ku waalanay Yurub aa maskaxda naga gashay Yurubta waxaan u malaynaa inay janno taalo amba maxay tahay lacag laamida iska taalo aan u malaynaa soomaalida dhan ayaa meeshan ku hungowday wiilkaasna wuxuu la mid yahay soomaalida meesha ku hungowday ayuu la mid yahay aad iyo aad ayaan uga naxay caawa markii la ii sheegay arrintan waa wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah waa 21 jir ku dhashay Gaalkacyo kana dhoofa Gaalkacyo yacni dadku waxay isweydiinayaan sidee maskaxdan lagu soo hindisay inuu wiilkaani gabadh isku ekaysiiyo oo sida dumarka u labisto oo dharka dumarka gashto oo sida dumarkii maxay u laafiyoodo oo make up marsan maskaxdan waa maskax dhow ma ahan sidee baa lagu keenay ayay dadka isweydiinayaan balse waxaan xog hoose ku helaynaa inay walaashiisii ka dambeysay arrintaas iyo dad asxaabtiisa ku dhawaa inay ka dambeeyeen inuu saa u labisto dhageystayaal wiilka ayaa ku xiran dalka Turkiga baasaboorkiina waa laga qaaday halkaas ayuu xabsi ku jiraa gabadhiina waxaa loo malaynayaa in la xiri doono amba laga musaafiri doono dalka UK amba Ingiriiska halka ay ku nooshahay warar badan ayaa saas sheegaya balse lama hubo lamana xaqiijin karo arrinta gabadha sidoo kale wiilkan waa xiran yahay weli laakiin wax go'aana kama soo bixin amba maxay tahay xukuumad ah amba sii deysma ah weli wax war ah lagama hayo wuxuuna ku xiran yahay dalka Turkiga waxaa aad iyo aad naxdin u leh in adigoo wiil Soomaaliyeed ah aad isku haligto waxaan waxba ahayn Yurub aan waxba kaa soo galaynin nafsadiina inaad u haligtaan wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waa idinka digaya arrimaha noocan oo kaleeta ah awal waxaa la arki jiray baasaboor fake oo lagu baxo laakiin hadda waxaa imaatay gabadh isku soo ekaysiiyo wallahi waa arrin aad iyo aad looga naxo aad iyo aadna looga walwalo waa kaasa asagoo meesha immigrationka joogaa wuxuu garaacanayaa baasaboorkii wallahi waa arrin aad iyo aad iyo aad u murugo badan aad iyo aad aan uga naxay markii arrintaas la ii sheegay because waa arrin aad iyo aad uga jeclo waaye wiil Soomaaliyeed oo da'yar oo da'diisu intaas tahay inuu hantiso amba uu niyeysto inuu gabar iska dhigo dhar dumar gashto oo make up marso calashaan sidii uu ku tegi lahaa calashaan suu ku tegi lahaa Ingiriiska ayuu falkaa u sameeyey marka dadku caawa waxa waaye baraha bulshada waxaa isla dhex maraya wiilkaas dadkuna aad ayay uga falcelinayaan aad ayay uga yaaban yihiin waxaa ku kalifay wiilkaasi inuu arrinkaasi sameeyo daawadayaal waa idin salaamaya dhammaantiin waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa idinka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe-kaa naga ilmaamin waa walaashiin soomaalida madow insha allahu tacaala soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu